gacmaha shisheeyana 20 sano ay wadeen baaba iyo dhimasho iyo xaabo iyo foorna isgarab yaal in loo isticmaalo Soomaalida oo dabku ku socdo waliba ay meel NGO ka soo qaadato 20 sano ku socotay waxaynu ka dhaqnayna waa arkaynaa waxa dhulaya waa ummadeena waxaan qabnaa oo soo dhaweynaynaa inay isu yimaadaan gacmaha shisheeyana ka kaafdoomaan xalkoodana raadshaan ilaahna ka cabsadaan saasa soo dhaweynayna waa qabnaa gudoomiye marka aanu intaas kaga gudubno arrinta dastuurka iyo xiriirka Puntland iyo federaalka iyo gobolka mudug hadda waqti ahaan baad ku joogtaa waxaa ka jira mudug laba maamulkan Puntland iyo galmudug inkasta oo magaalada heshiiska guud uu yahay in nabad lagu wada deganaado aan lagu kala bixin haddana isku dhacyo iyo wax waa kala gaaraan dadka soo aragtaa halka mudug iyo nabadgelyada inuu ku jiro waxaan u arkaa mudug inay mudug tahay waxaan u arkaa ummadda ku nool inay reer mudug yihiin waxaan u arkaa wada jir iyo isku xiraan inay kaga gudbi karaan xilliga adag ee maanta dhammaan Soomaaliya ku sugan tahay intaas isku xiraanta inay kaga gudbi karaan ahalnimadooda iyo isku xiraantoodan ay wax walba ka hormariyaan mudugna ay kala go'ayn dadkeedana oo san kala tagayn baahidooda iyo dhibtooduna ay isku mid tahay saasaan qabaano iyada ka waran fikradda ah in baahidaas in la gaaro horumarkaas la gaaro inay ku jiro in hal maamul la helo aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa wayna fiican tahay kalkaay labadeeda daan laba maamul oo kala sheegtaan dadban sameeynayo dadka ku noolina inuu caqli la yimaado haddaba nabadda waa laga wada shaqeeyaa nabadoonnadu way isku xiran yihiin dhismadu way isku xiran yihiin ururada bulshadu way isku xiran yihiin bolis way isku xiran yahay amniga waa laga wada shaqeeyaa waxa noo dhimanay waa daba iska raacin waana ku hawlanahay sidaanu insha Allah u soo afmeeri lahayn xaqiiqdan aan lama dhaafaanka dadkeeda oo miyirka ugu soo celin lahaa nabadoodu waa nabad colkoodana waa colo in qaybina urusho qaybina nabada haatana suuragal ma wada jirka lagu warweeyaa isagana ku hawlanahay hawlaha midna qayb ka mid ah hawlahaas waa gartay iyada arinta qacbeeda ka baarlamaan ahaan wali wax ma iska tirahdeen oo wax xal keeni kara maadaama maraakiibta shayna ay soo buux dhaafinayaan xeebihii caalamkiina iyada laftigeeda cabaad uu ka taagan yahay oo in qacbeeda si badanayso meelaha buddiga uu ahaa mar walba markii qacbeeda soo hadal qaado calaamadu noqda ay Puntland tahay taas xal ama arrin wax ma iska tirahdeen ka baarlamaan ahaan Puntland burcadbadeeda horta marka koowaad waxaan u aragnaa caalamka aad sheegaysaa abuuray waayo waxa la yiri noolo kasta oo Ilaahay khalqo wuxuu hor joogaa noolo aan aadamigu aqoon haddii noolahaas la yaqaan mas'uuliyo waxaa soo baxa mid aan daawo loo hayn oo aan hore loo aqoon wuxuuna keenaa shiddo badan inta loo helayo dawo lagu suuliyo dadkaani malaygooda qabsan jireen dooyo yar yar bay lahaayeen gargooray dhigan jireen mulacyadoodaasay guran jireen argoosadaasay ku noolaayeen mashquul bay ahaayeen way ladnaayeen adduunka aad sheegayso geediyaa yimid shamaagihii buu ka jaray malaygii iyo argoosatadiina waa ka dhameeyey nimankii xaalaf markii la soo taagay maraakiibta aad sheegayso oo jiriifka ay ku qabaabeen qolo waliban hal marka bay la dhaqaan lacag badan bay ka heleen adduunkii dabkii markaasu taa laakiin dawladayada iyo badayada iyo dhallinyaradayada iyo dadkii ku noolaa badahayaga markii hore dabka waa la taabsiyey dhibtii ay keentay maraakiibta jiriifka ee badaha Puntland xaalufiyey reaction ka yimid xaalufintaas ayaa burcadbadeeda dhalay waxaan soo dhaweynaynaa in badihii hadda waxaa yimid maraakiib tiro badan oo shisheeye oo tabeella ah burcad baan la dirinaynaa soo qaatay qoladii laba markab soo dirtayna 10 jiriifa inay ka soo daba direen wali badii la boorayo baan annagu qabnaa burcadbadeedu way abuurantay dhaqaale fara badan bayna keentay maxsuulkii Puntland ay ku soo celisay faa'iidadiina waxay noqotay xashiish iyo khamri iyo fiski iyo dilaysi iyo wixii la mid ah arrintaas culumadii iyo dawladii iyo dadweynihii aragti midaysan baa laga leeyahay mana aqbali doono in la jiheeyo oo xiriyo loo furo oo xafiisyo la diyaariyana waa ku hawlanahay inay ka waantoogaan oo ilaah ka yaabaan
وأمد قرية أنت اللي وقفت القفارة يوحى لقيها حلال ما أنا حرام مقدع ويه إنه يبني يردوا التنازلان ووحي هذا بدأ كبحي وبيبتو قارت وحي باقية إنه يكبحان بان أيضا أتشيدين إنه الدول كسود دولين إنه يبناها يجد شريف كدايان بان أيضا أتشيدين ساسا نبجعل لهاي هذا علماء باقوها والله اللي يرضي إنه نبضي كسر برعاد نمضي بلغوها وليه هاي برنامج كاسين برنامج صعدة ومرفي عن مرية تدوينه الدولة دي أركتين ليس كليهين وين إن شاء الله سوى نفسهم بركوبا مرية عندنا الله دور بغل بعد هاي برنامج كنوع عصها. وقت مكا مدمي بدودي بنقولنا هاي ورئيس حرة كوجا بجبينه أو حكاويتيو أرنتان بعبيدي أنا بسيس عنا ما هو إتهامك هذا كأجن إن لوصل لهذه كونتراكت هنا ما كان نقول إنسان أنا بقرأ يصير بعبيدي أنه هو شغلنا إسقاطه أو لوجدلي أو لوصل لهذه وحيد فعال يعني هنا أنا ما كان نقول إنسان إن يجي حدا شقوي كأيقبتين لا عين وصل شيء دسيو إن حرام يفسق حشيش يكسر زيادين قبل كده adduunka qaylinaya la qafaal baan la ku taagay ducada waxa laga qabto waxaan ku sheegay inay ayagu abuureen mushkilada tan way ummad meel joogtay xawfiya shamaagoodina ka jaray baalkiina ka dhameeyeen ay ku noolaayeen waxa horta maxaa dhalay cidda leh dambigeeda in la saaraa la rabaa kuwa qaylinaya dambiga leh kuwa malaayiinta bixiyo waa la mid ha isku tar marka waxaan leenahay raalli kama nihin والعبادات وفلالك أي كتير الدنيا آخر منا فعل ما يمنع حمو يسمع حمو بين البطلان أسود جيدين أيها وحي كلفي واشر لي وحا أي ولا وحا كتب لنا واشر لي وحا نكوها لنا هنا وانشر لي إلى أن يرشي بلاها كساره ويكون ماذا والروح الحر الدنيا كان لونه فيه ميرو البيت دات سينين ما شاء الله بالعبادات بين كتير تملا هاي ولا شيء من نور ويكون ماذا إلى إلهي كيابا وعلمنا يدولة باقوا الصراعة انت قاعد يسلق لنا قبقبشة الجنية اسكوبابا اما عدو قيساء الامام انه حالكاسا كوهو لنا ملفي عبير مريسا دور بغلبانا حتى كسر بحي انت كل من نوا كد مجراء لمنك الدون كشيغانا شغله مشكلة دان ابورين وحان ugu baaqayna inay nooga baxaan biyaha iyaga anaga ilaashanayna ciidamada iyo waxyeelada barcadnimada kala baxayn ilaa hadda waxa laga leeyahay inay Puntland ka caawiyaan in bulcadbadeed xalkeeda ay kala qayb galaan marka mushkilada oo dhan cida qaylinaysa oo adduunka sheeganaysa ayaa Puntland u haysata gudoomiye ugu dambeeyay waxa ka hadashaa oo aan wax ka weydiinay saxaabada waxa ay badan isku dayay inay wax ka sheegto oo ay ka hadasho markab talyaaniga ee laga leeyahay oo xeebaha ay ku xiran oo la tilmaamay in ay saaran yihiin ama ku xiran yihiin waxyaabo sun ah markabkaas baa faahintiisa markabkaas dadkii iska lahaa waa arag talyaanigu waa noo yimid garow waan ku qaabilnay madaxweynuhu waa fadhiyey wasiirada iyo xukuumaddu waa joogaan anugu shirkaa waa ka qayb galay waxaanu ka codsannay markabkaas lacag laaluusha inaan talyaanigu ku bixin waayo waxay dhiirigelin u noqonaysaa burcadnimada iyo bahalowga dhalinyarada haddaynan hoos wuxuu wadin ballanqaadkii saasuu ahaa annaguna inaan xoogga saarno markabkaas inaan sii dayno ciddii soo wada iyo ciddii wax lagu ogaado baaris kadib de waa la bablish garayn lahaa arrintaas talyaanigiina saasaan ka codsannay dhallinyaradiina odayaashii iyo xukuumadduba way ku hawlanaayeen markabku haddii sunahaas la sheegaya uusan wadin shuruud la-aan in lagu sii daayo madax furasho aan laga qaado Puntlandna in ay madax furasho ogolaato waxay ka xigsatay inay weerarto oo xoog markabka looga sii daayo nimanka haysta talyaanigii baana codsaday inaan la weerarin annaguna waxaan codsanay inaan lacag bixin laaluush ah si aan dhalinyarada nooga baxloon halkaas markabka xaaladiisu taaganta mahadsanid gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda Puntland ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo wareysigaasi aan kula yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Gaalkacyo.